Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, meet again with us, Ali Family Indonesia. Before you watching, please like and subscribe our YouTube channel. Okay, now I want to talking about Muslim women in the world. What make different in Indonesia? So when we salat or pray in Indonesia, they're using what we call mukena. This here inside the bag I have mukena. Yeah, I will show you because they use Indonesia because most of them something aurat they don't cover, maybe hand or feet. So when they use this, all the aurat become closed, so we can salat too. Share the video, and then yeah, this have a two piece. So all Indonesian women when they salat or pray, they using this. You see, this have a two piece. Have one piece too from top until the bottom. Okay, this yeah, you can use. Assalamu alaikum. Waa nin yiraahdo Adam. This is my wife. Waxaaskeyga insha Allah iyada ay tusi doonto sida loo isticmaalo dharkan ay dumarku ay ku dukadaan oo Indonesia looga yaqaano mukana. Dharkan waa dhar qofka dumarka ay meel walba u qaado karto, gurigeedana ay ku dhex dukan karto. Waa laba shay buu ka kooban yahay, mid ka kore iyo mid hoose. Marka sida ka aragtaan baxaaskeyga ayada idin sameynayso insha Allah ay tusinayso sida loo isticmaalo. Waxaa la yiraahdaa magacooda mukana. Indonesia waxaa looga yaqaanaa mukana. Waa dirac hoose iyo mid kore. Ay nooc kalarna wuu leeyahay, cadaan, madow, buluug, ay kalar ka rabto wuu leeyahay. Meel walbana waa u qaadataa, wuxuu leeyahay baag lagu qaato meel walba ah. Marka ay guriga ay ku dukanayso iyo markii aad safar tahay meel walba u qaado karaysaa. Marka waa sida waarta waa kasaa kor iyo hoos waa cover gareeyay. Awradoo dhan gacmaha lugaha meel walba waa kafaynaa. waayo waxa laga yaabaa dharka aad ku xeesan tahay inuu xitaa mar uu ka yahay muxuu ahaa uusa kula ekeen oo lugahaada iyo baalkii ama gacmahaada la arko. Marka sida aragtaanba waxa waaye wuxuu wataa baagan oo ku ridi karto meel walba u qaado karayso. Waxaan la yiraahdaa mukana. Indonesia waa wadanka ugu badan muslimka adduunka. Dumarkoodu waxay ku dukadaan ama ha aadaan masaajidka ama ha aadaan ciida salaadaha ciidaha ama gurigoodaba dharkan la yiraahdo mukana ay ku dukadaan. Kalar walbana waa leeyahay, waxaan lagu sameeyaa wadanka Indonesia. Marka wadamada kale oo muslimka sida hadda muslimka ku noqon Philippines way isticmaalaan, Malaysia way isticmaalaan, dumarkooda way ku dukadaan. Marka sida u aragtaanba waa dhar aad iyo aad u wanaagsan oo kalar walba leh oo dumarku ay ku dukaraan gurigooda. Haddii qiimahooduna waa qiimo aad u jaban. Marka haddii aad u baahantihiin muxuu ahaa inaad ka ganacsataan, waxa waaye ay kalar uu leeyahay, ay motif uu leeyahay. Marka noocaarta oo soo dalba karaysaan, qiimuhuna aad iyo aad u jaban yahay. Ilaa waxaan ku qiyaasi karnaa $10 ilaa $20. Ya sadkoo dhan oo iswata oo waana asigoo baalkii ah dhar muxuu ahaa nooca rabtaa ka dhigi kartaa. Ay kalar ay nooc baagiisa wata. Haddii qofka dumarka uu safarayo Small size too, so you can bring. Yeah, you can have a small one too, so you can bring everywhere. Traveling. Yeah, you have a small bag. They have children also. They have a girl. They have a big size woman, tall woman, short woman. Many kind, any kind you can find it. Meel walba u qaadi kartaa Indonesia. Meel walba ayay u qaataan safarka markay safrayaan mar walba. Marka waa dhar qofka dumarka meel walba uu la aado ku safri karo. Waa aad u wanaagsan. Waxaan laga isticmaalaa wadanka Indonesia, Malaysia. Labada aad looga isticmaalaa. Waa wadanka ugu badan muslimka Indonesia ayaa lagu sameeyaa. Waxaan la yiraahdaa magaciisa mukana. Qiimihiisuna waa $10 ilaa $20 ayuu ugu badan yahay. Haddii aad u baahan tahay waa naga soo dalba kartaa. Numberkeena wuxuu ku yaalaa haddii uu reebeen hadduu laadmo WhatsAppkeena, Facebook iyo YouTube-ka. Waa naga soo dalba. You can Common mahar. The people in Indonesia markay dumarka ay guursanayaan dumarka waxay siiyaan mukanaha ay mahar uga dhigaan. Maharka waxay ugu dhigaan
muxuu ahaa mukanaha Quran. iyo sajada iyo alqur'aan ayaa marka Indonesia marka la guursiyo dumarka intaasaa la siiyaa That's all. ninkii lacag ugu dirana isagana waa gooni marka haddii aad doonaysana waxaa naga soo dalba kartaan annagaa idiin soo dirayno annaga iyo xaaskeena waxaan deganahay waddanka Indonesia insha allah halkaasaan ganacsi ku leenahay oon deganahay oo dhowr ciyaal ah insha allah ay noogu dhasheen oon deganahay marka waxaa nagala soo xiri kartaan nambaradana waa iisoo qoraynaa ama you can message us via messenger haddii aad doonto insha allah maxaa kaloo ku dirle This Would more they- good because sometimes women have a tight other side clothes, so it's not we cannot like pray straight away. So if you use this, you can cover your clothes, everything, and then you can close your aurat, everything, and you can pray. And they have a more small than this, even half, yeah. So you can bring your bag, traveling, go away around. You can use more light, many kind motif, many kind color, many kind what, yeah, bahan you can use it. So it's easily from price low until up. Yeah, Yeah. depend on what you choose, what you choose. marka dumaashii sheegtay dharku waxa uu kala leeyahay noocyo badan qofkii dumar oo ballaaran oo buuran qofkii dumar oo caatada ah ya uu leeyahay kan hadda arkaysaan baagiisu uu yara ballaaran yahay kuwa xaafkiisaa jira oo nooc walba leh katan mid laga sameeyey baati mid laga Yeah, sameeyey we can baati traveling mid laga with sameeyey it's more marka small. is a very easy markaan idigu celiyo waxaan kasoo dalba karaysaan nambaradana iyo ama messageka ay noo soo diri karaysaan wixii 10 ilaa $20 wey insha allah soo qaadinsi waxaa dhan insha allah waxa waaye waa ku jiraan insha allah adigoo halkaa joogan kugu soo dirayna insha allah ilaa $20 $25 macal muxuu ahaa ku keeninta aad igu keenayn insha allah haddii aad degan tahay Soomaaliya Muqdisho iyo haddii aad degan tahay Nairobi Kenya iyo haddii aad degan tahay North America Maraykan Canada iyo Europe ilaa $25 insha allah ayaan kuu keenaynaa kugu soo diraynaa dalika via DHL ayaan insha allah idigu soo diraynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Assalamualaikum.